السلام عليكم صاحبي الميل والبا dunida ka joogtaan waa idin salaamaya ku soo dhawaada ciyaartii xalay dhacday iyo falanqeynteedii oo ciyaartaas oo u dhaxaysay Manchester City iyo Leicester saaxiibayaal sidaan wada ognahay Leicester waxay ahayd away guriga Manchester City waxay ku ahayd marti Manchester City 5 gool ayadoo indhaheeda shanta cid qof filanayna ma laha Manchester City ha ahaadaan fanskeeda ha ahaadaan cid walba marka og tabarta iyo Manchester City ka warqabto oo waliba gurigeeda looga imaaday Manchester City waxay ku bilowday seasonkan dhaawacyo fara badan iyo kala habacsanaan dhinac walba difaac ha noqoto dhaxda ha noqoto waxaad moodaa inay ka yara nool yihiin horay kaasoo Stalin Mahrez waa ujeedaa in maaragtay cid walba ka reeysa ama maaragtay kuugu qabsata booskaaga meel un bay ka soo galaysaa ha ahaato dhinaca qof hadduu ka reeyo sabab buu kaaga reeyay meel un buu kaaga soo galaya laakiin Manchester City sida la moodayay iyo sida ay hadda ku bilowday seasonka hadda waxay leedahay 3 point oo kale ay leedahay waxaana hogaaminaya liiga Leicester oo leh 9 dhibcood iyo 8 gool waanu wada jeednay habka uu socotay ciyaarta Guardiola in uu ka soo haray indho goolkii ugu horeeyay oo Mahrez uu ka dhaliyay wuxuu ku noqday mid suna waad u jeedeen ciyaaraha kale siday ku socdeen Manchester City Tottenham laakiin waxa aad ugu faraxsanaa guuldarrida ama ku farxi doono guuldarrida soo gaarta ama soo gaartay Manchester City waxa aad ugu faraxsan Liverpool taasoo iyaduna ay taageero fara badan dhinac walba ayaa waxaad arkaysaa aad uga niyad jabsan sida maaragtay Manchester City fanskeeda oo kale iyad wanaagsan oo nin walba wuxuu islahaa maanta 5 iyo 6 baad dhalin doontaan laakiin xarashkii baa u dhacdayo waxa loogu bedelay 5 gool penalty-yaasha waad aragteen qaabku Vardy u dhaqmaayay ayadoo lagu raacanayay difaaciyihii Manchester City ay ka dhigteen hawl inay asaga qabtaan laakiin marka sida loo daarabo waa asagana faa'iido kale u arkay oo fursad meesha ka raadinay aan fiirino dhinaca Tottenham iyo Newcastle oo seasonka ku bilowday si mucjisa maxaa yeelay sida Manchester City oo kale daqiiqada ugu dambe waa mo filanaynin Mourinho in lagu bareejeen doono gool noocaas odayga waa uu diiday xataa markii la wareysanayay inuu ka hadlo wax ka sheego penalty-daasi uu ka gaabsanahay hadda Man City oo kale waxay ku jirtaa numberka 13aad waa Leicester waxay ku jirtaa number 1 marka asxaabay intaas ayaan ku soo gabagabeynaya aad loo wada sugayo oo ah Arsenal iyo Liverpool waxaan idinkaga tagayaa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh